munaasabada tan oo lagu xuseeyay 250 guuradii ka soo wareegtay xorriyadii gobolada koonfureed iyo waliba midnimadii labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya oo habeennimadii xalay ka dhacday xarunta madaxtooyada ee maamulka Khaatumo ee degmada Taleex ayaa waxa soo qabanqaabiyay mas'uuliyiinta maamulka Khaatumo iyo waliba ururada bulshada ee ka jira degmada Taleex munaasabada tan oo ahayd mid diyaar garowgeeda laga dareemayay degmada Taleex toddobaadadii la soo dhaafayba ayaa waxay ku xigtay munaasabadii 26 Juun oo isla madaxtooyada maamulka Khaatumo ee degmada Taleex xaflad tan oo kala ah loogu qabtay munaasabada 52 guuradii ka soo wareegtay midnimada labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya iyo markii askarigii ugu dambeeyay Talyaani uu ka howleelay ciidda dalka Soomaaliya ayaa waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo oo uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Khaatumo Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash koob iyo 20 sano ayaan la saarin calanka kan halkan xuskan noocan laga dhigin waxa caawa taariikh lama ilaawaana ay Taleex iyo Khaatumo ku reebaysaa muddada dheer ka bacdi inaynu dib u soo noolayno midnimadii Soomaaliya waxaan ku niyadsanahay sanadkan sanadkiisa iyo ka horba ku dabaaldegi doono dhulkeena inuu ku dabaaldegi doono guuleysta waxaan idin rajaynayaa inaad ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo sanadkan sanadkii sidoo kalena dadkii goobtaasi ka hadlaya waxa ka mid ahaa qaar ka tirsan dhalinta u soo hoyda degmada taariikhiga ee Taleex oo iyagu aysan waqtigu ku simin inay goobjoog ahaadaan maalintii calankii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ka babado ciidda dalka Soomaaliya ayaa iyaga la faahantoodu aadaahdooda ka dhiibanaya balse ay u arkaan xorriyadda ay haatan ku naaloonayaan وشايف أدوية واحد فرحة إن قاتم يستدر سومالي سيدا الله بقله أما لما فلان كا يقول بالدرس كود نوغيو سيدا ما يقول بالدرس اللي بعتني لحد كان وجوه قاعد السومالي تاني أجار سي خاتمه asikastay haataba munaasabada tan oo ahayd mid si weyn looga soo shaqeeyay ayaa 12kii habeennimadii xalay saqdi dhexe waxa calanka markaasi saaray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawishta ee maamulka Khaatumo Axmed Cali Faarax TV عالمي Somalisat degmada Taleex